السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa Maal Maxmuud casharkan waxaynu ku qaadanaynaa 10kan erey meesha noo saaran ereyga koowaad ordeal waxaa la yiraahdaa something that is difficult wax adag wax dhibaato ah ama xanuun kuga la yiraahdaa ordeal yes for example the journey safarka was an ordeal was difficult for the travelers dadka safro wuu ku adkaa yes she survived the ordeal of surgery she survived waxay ka badbaaday ama u adkaysatay the ordeal of surgery the pain of surgery xanuunka uu ku hayay qalliinka marka ordeal waa wax adag oo dhibaato ah xanuun waa dhici karta yes ereyga labaad ornament waa waxyaalaha guriyaha lagu sharaxay yes she used a small ornament on the desk yani sharaxaad bay saaratay kursiga marka ornament waa waxyaalaha guriyaha lagu sharaxdo ama sharaxaad buu iska dhigi kartaa aad iyo aad ereyga saddexaad outline waxaa la yiraahdaa يعني summary wixii la soo gaabiyo yes please give me an outline of your idea summary of your idea fikradaada isoo hawaayo isoo gaabi aad yes outset waxaa la yiraahdaa horaantiiba ama bilowgiiba at the beginning yes horaantiiba for example from the onset horaantiiba she was confident kalsooni bay lahayd yes we made plans at the outset of the project qorsheynu sameynay horaanti projectiga ama projectiga inta aanan bilaabinba ama bilowga project aad iyo aad marka outset waxa waayo bilowga waxay isku macno yihiin start waxay kale isku macno yihiin begin yes ereyga shanaad overcome waxa waayo qofkii inuu ka gudbo xaalad ama dhibaato haysata yes inuu ka guuleysto deedna ka gudbo yes together they overcome the difficulties si wada jir ah ayay dhibaatadaas uga yani talaabsadeen waa overcome marka ka talaabsigaas waa dhigi karnaa ka gudubna waa dhigi karnaa ereyga lixaad overlook waxaa la yiraahdaa waxayna si kor ah kala socotid yes the balcony overlooks the garden hadii aad soo istaagto balcony waxaad kor kala soconaysaa beerta ooyday overlook marka kor kala socoshadaas ama supervise taas waa dhigi kartaa overlook waxaa kaloo la yiraahdaa when you fail to notice something wax dhibaato waxyaalo dhacay inay ka hoos baxaan aadan fahminba don't overlook this important detail yani macluumaadka muhiimka ah yuusan ka hoos bixin waa yes aad iyo aad ereyga toddobaad overnight loo micno leeyahay overnight mida koowaad isla markiiba waa dhigi kartaa suddenly ama instantly yes isla markiiba very suddenly for example the news spread overnight warkii isla markiiba wuu faafa isla markiiba waa isticmaali kartaa overnight waxaa kaloo loo isticmaalaa habeenkii during the night for example they stayed overnight in a hotel habeen bay seexdeen hotelka marka habeen waa dhigi kartaa isla markiiba waa dhigi kartaa ereyga sideedaad waa qof inuu kugu leeyahay deen yes for example waxaan leeyahay I owe you $5 waxaad ugu leedahay $5 yes ereyga sagaalaad biti waa qofkii inaad maxay ahaydee hoos u fiirisid ama yani ka naxid yani qofkii inaad ka naxid yes I pity those who suffer injustice waan ka naxaa waaye I feel sad waa ka naxaa yes ereyga 20aad u dambeeyo 10aad u dambeeyo sorry plague waxaa la yiraahdaa qofka markuu dhibaato yahay mushkilad yahay mar walba uu dhibaato uu sababayo ama waxaan mar walba markay dhibaato yihiin baa la yiraahdaa plague for example bad habits plague his success yani dhaqamada xunxun baa waxay ku noqdeen dhibaato ku noqdeen guushiisa yes ama culays iyo dhibaato ku noqdeen wax dhibaato joogto ah yes torment ay isku macnaheeyeen the city was plagued by crime caasimadu waxaa dhibaateeyay yani gabadfalada iyo dambiyada yes actually intaas ayuu ku eegay thank you for listening god bless you and have a good day bye bye